يا بسم الله الرحمن الرحيم وزير ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha taliye ku-xigeenka ciidanka booliska taliyaasha kale ee ciidamada ee halkan maanta iskuulka yimi gudoomiyaha gobolka maamulka madaxda waxbarashada waa agaasimihii guud iyo agaasimo waaxidiyadii iyo gudoomiyihii waxbarashada gobolka gudoomiyihii waxbarashada degmaduba ay joogaan saxaafadda dhammaantii waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka ereyga aan doonayaa warkii hore waxa dhameeyay madaxdii ka horeysay laakiin ereyga aan doonayaa halkan inaan jeediyo waxa weeye saddex erey oo mid ku saabsan yahay dugsiyada gaarka ah midna uu ku saabsan yahay ardayda fariin ta saddexaadna ay ku wajahantay waalidiinta ta dugsiyada gaarka aan u soo jeedinaya waxa weeye sharci buu waddanku leeyahay sharciyadaasi sharci waliba meel gaar u xukumaa sharciga waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada iyo habraaca xanuunka covid-19 saddexduba waxay waajibiyeen in arday kasta markuu uu fasal fadhiyo ugu yaraan uu helo space ama duralaati madhan oo uu keligii fadhiyo oo ah 1 mitir oo laba jibaaran fasalka marka la yidhaahdana 45 arday wax ka badani ma fadhiisan karaan fasal 48 mitir oo isku wareega fasalka iskuulka lagu arko fasal 45 arday wax ka badan ay fadhiyaan waliba waa markuu iskuulku cabirkii wasaaraddu ay dejisay markuu fasalku yahay 45 arday wax ka badan iskuulka fadhiisiya waxaan u sheegayaa liisanka in saacada laga qaadayo intii la isu dul qaadanayay ee la isu sameeyay ee waqtiga ay nasiya way soo dhamaatay liisanka waa laga qaadayaa waa kow isla markaana ciidamada booliska iyo maxkamadaha iyo cidda u xil saarani sharciga fulintiisa cidda u xil saarani talaabo sharciga waafaqsan bay ka qaadayaan maxkamad baa la geenayaa qofka qof dilaana sharci buu jabiyey qofka sharciga waxbarashada jabiyana sharci buu fariyey labadaba ciidanka booliska iyo maxkamadu talaabada ku habboon bay halkaa kaga qaadayaan waxa kaloo habraaca covid-19 ee guddiga qaranka ee madaxweyne ku-xigeenku gudoomiyaha uu yahay uu mamnuucay in ardayda laga qaado ilaa inta xaala uu xanuunkani jiro in ardayda laga qaado lacag aan ahayn lacagta fiida ama bil ha laga qaado ama semester ha laga qaado jaamacadaha iskuuladana qaar baa bil ka qaada bisha wax ka badan lacag aan ahayn oo ardayda laga qaadi kara ma jiro waa mamnuuc waa sharci darro imtixaan bilaad baa la qaadayaa waraaqaha halkaa ka iibsan librariga iskuulka buugaag aan ahayn kuwa wasaaraddu daabacday oo ardaydu ay xor u yihiin hadduu iibsan karayo weeye inuu ka soo iibsado dukaankuu doono lama odhan karo iskuulkaad ka iibsanaysaa waa sharci darro waa xeer jabin dowladduna tallaabay ka qaadaysaa waktina siiya dambe way soo dhammaatay nin walba ogow lama odhan karo ardayga nusacaa markuu u soo baxo dee hadduu lacag sitana halka ku xigta iskuulku ka iibsanaya hadduu shandadiisa ku sitana wuu qaadanaya laakiin albaabka lagu xidho la yidhaahdo maqaaxida iskuulka ku taala meel ahnayn kama iibsan kartid war nimankan xagee ka yimaadeen dadka maydinkaa leh ilaahay baa le dadka suuqa xorta ee somaliland wuxuu sheegayaa meeshan doonaan ka iibsanaya nusacaan halka ka iibsanay ma odhan kartid bugaagta halka ka iibsanay ma odhan kartid wallaahi way dhammaatay intii laysu dul qaadanayay hadhowna dee ninka soo raaca iyo caaqilka u soo ergeeyey iyo madaxda u soo ergeysa iyo sheekha u soo ergeeya ee ay yidhaahdaan ninka carruurta saa u geliya baan ergo u ahaye waxba maahe sii daa waa la dembi isaguna dembiga ha galo ayuu leeyahay nimanka intay whatsapp group samaysteen ku wada hadlay yidhaahdaa aynu sidaa samayno dee dowladdu waxay u aqoonsanaysaa jabhad la dagaalamaysa dowladda jabhad la dagaalamaysa dowladdu shaqada sida talaabada ka qabto ay ka qaadayso way taqaanaa marka waxaan idin leeyahay war nin walowba sharciga raac marka sharciga raacdaana iskuuladayadii baa tihiin horumarintiina aanu ka qayb qaadanaynaa macallimiintaanu idin tababaraynaa haddaad tirahdaan macallimiin dheeraada maalmaha qaarkood macallimiin baa naga mudan noo soo dira guddiga waxbarashada ka mid noqonaysaan waxa ka mid noqonaysaan
guddiga jaan goynaysa horumarkii waxbarashada Soomaaliland ninkii sharci ka hor yimaadana dee anigayga wasiirka haddaan ka hor yimaadana dee tallaabo layga qaadaya markaa group isku xidhan oo meel joogo isu haysta inay dawladda la siman yihiin ay wada hadal la galayaan war dawladda ka mas'uula meesha sharcigaasina baarlamaanka baaskareeyay golaha wakiilada baaskareeyay golaha guurtida gacanta u taagay baaskareeyay madaxweynihii la doortay codka lagu doortay Soomaaliland ay dooratay ba saxeexay ninka inta ka weyne isla balaa inta waad ka hortay kartaayo dulqaadka halka uu ka dhamaaday ogaada ardayda maxaan leeyahay haddii la idinku khaldamo wasaaradii waxbarashada meel kasta xafiis bay ku leedahay waad u soo dacwoon kartaa laakiin ardayga ku kaca magaca gubbeena oo goob waxbarasho uu kula kacayo dambi bay leedahay magaca gubku waa dambi ciqaabeed markay cid ka soo dacwooto haddii aad adigu isku aragtay in lagu xadgudbay oo ama lacag laga qaaday aan ahayn in laga qaado ama buugaag lagu qasbo lagu yiri iskuul ka iibso ama nusaacihi lagu yiri makhaayada iskuulka mid aan ahayn kama iibsan kartid ama aad u aragtay in xaq darro lagu eriyay waad soo dacwoonaysaa waxaanu sameynaa xarun wicitaan oo ah nambarkeedu yahay 9666 waa 3 lixaad 9 iyo 3 lixaad waxa laga soo wici karaa shirkad kasta oo isgaarsiineed Soomaaliland ka shaqeysa ardayga laakiin ma dacwoonaye gacanta ku qaadanaya sharciga kaasna gacan bira lagu qabanaya talaaba laga qaadaya kuwii maalintii dhaweyto waa iskuulkii labaad baan u malanayaa 10 cisho gudahooda wax ka dhacaan cid kasta oo ka qayb qaadatay oo daaqad yar jabisay hanti Soomaaliland leedahay buu burburiyay talaaba laga qaadaya waxa loo arkayaa oo aanu ka shaqeynaa xitaa war ardaydan yarana markuu macallin yiraahdo xaggan u beero buuqa sameynaya Soomaaliland security-geeda iyo nabadgelyada khatar bay ku yihiin baaritaan waxa lagu sameynayaa in cid kale ka dhaxadlaysa iyo in kale way gacan kale ku jirto waayo macallinkaygii baa igu yiri xagga u beed oo dabeetana iskuulka jabiya qubeeqa ma jabin kartid talaaba laga qaadaya gacan bira lagu qabanaya ciidankii booliiska iyo wasaaradii daakhiliguna wayna la joogaan waa kuwa dhacayda jooga iyo madaxdii goboladu iyaga u xil saaran fulinta sharciga saacada laga bilaabo waxa haystaan amar ah in iskuul kasta intay tagaan ay eegaan oo 45 wax ka badan fasalka fadhiya maamulaha iskuulka iyo macallinka ogolaaday in 45 wax ka badan fasal fadhiisiyaba inay talaabada kaga habboon ka gutaan iskuulka lagu arkana maanta waa maxay taariikhdu 10 maanta oo laga 10kii maarisha maanta laga bilaabo iskuulka la arkay 45 arday wax ka badan fadhiisiyay liisa kana waa laga qaadiyaa dambiga ciqaabta ee xeerku jabiyana waa la marinayaa ta saddexaad waalidiinta waxaan u sheegayaa caruurtiina waa caruurteennii waa ubadkeennii waalid baynu wada nahay dee aynu wax u sheegno oo aynu wanaagga u sheegno oo aynu ogaano ardaygeenu iyo ilmaheenu wuxuu ku dhex jiro aynu ogaano oo hadduu wax u sameynayana ha laga qabto dee ka dhageysan waayna ha loo sheego laabaha sharci fulinta u xil saaran wasaaradda waxbarashada gudoomiyaasha gobolada gudoomiyaasha degmooyinka kormeerka iyagana talaabadaas oo kala laga qaadaya ninka lagu arko gobolka gudoomiyaha ka ahaa oo iskuulo 45 wax ka badan ay fadhiyaan iyo iskuulo lagu qasbayo ardayda saacad ama lagu qasbayo buugta qasab halka ka iibso ama lagu qasbayo waraaqa halka ka iibso ama lagu qasbayo nusaaca ka iibso nusaaca haddii iskuulku si karayo annagaaba soo dhaweynana oo la caawinana odhanana haddaad bilaash ku siinayso de welcome xataa haddaan bilaash ku siinayo wuxuu xaq u leeyahay inuu idhaa anu ka bilaash kaama doonaye makhaayaddan inagu xigtaa wax ka soo cunaya ay siidaa waqtigun baa loo cayimaya hadduu nusaaci ka soo daahana dee tallaaba laga qaadaya laakiin intaan albaabka hoosta uga xidhan dhadaalka ma maxaabiis baa ardaydu wasaaradda waxbarashada ana amarkaana horena way u qabtay imbakana way qabtaa maalinta wax dhacaan inaanu isdaba yaacno maaha wasaaradduna waa ka qayb
waa ka qayb shaqaalaha wasaaradda hawshoodii gudan waayey in iskuullada marba mid rabshad ka dhacdo markuu shaqadiisa gudan waayo bay da waxaas imanayaan uu sharciga fuli waayo markaa ka soo cawda iyo ka yidhaahda wii maqli waayow dee saacaddaa laga bilaabo resign garayo iscasilo waxaa tidhaa war oo ku fashilmay cid kale u dirta laakiin dulqaad dambe oo loo dulqaadanayaa ma jiro waxaana rajaynayaa inaynu dhammaanteen sharciga wada raaci doonno ardaydeennuna ay noo wanaagsanaanayaan macallimiinteennana waxaynu la qaban karnaa inu qabanayo iskuulladeenna iskuullada gaarkaa iyo kuwa dawladdaba hadda amarkaasi wuu quseeyaa kuwa gaarkao qura ma quseeyo kuwa dawladda laftigooda sharcigu ma ogola dee wuxuu la xeer yahay kuwa waxaan kaloo doonayaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto waxaa soo baxay niman inta iskuulla ay furtaan madarasa ayay yidhahdaan magac af carbeed oo la baxaan dabeetana waxay dadka uga dhigayaan inuu kaasina iskuul muslim yahay kan magaca dugsiga loo bixiyana aanu ahayn iskuulladu waa diintana waa lagu wada dhigtaa qofka furta ama af carabi hawla baxo ama madarisada ha u bixiyo ama af kale hawla baxee qofka iskuul aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda waxbarashada ama quraan ha lagu dhigto ama xisaab ha lagu dhigto ama combyuutar ha lagu dhigto ama iskuul kale ha lagu dhigto qofka furta ee isna sharcigaa raaci waayana waa la qodob waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto wasaaradda waxbarashadu inay go'aamisay in iskuullada waxbarashada lagu soo daro maanta laga bilaabo lagu soo darayo maadooda diinta markii horeba waa lagu dhigan jiray oo tarbiya lagu dhigan jiray laakiin taxfiid alqur'aan baa lagu soo darayaa taxfiid alqur'aan baa lagu soo darayaa ardaygu ciddii ku cilmiga lahayd baa la weydiiyey ardaygu markuu fasalka koowaad joogo ee dugsiga hoose dhexe hal jis buu xafidayaa ka labaad markuu joogana 2 jis saddexaad 3 afraad 4 waa 10 jis afarta sane dambe hadheena sanad walba 5 jis buu xafidayaa dugsi dhexe markuu ka baxo isagoo xaafid alqur'aan u baxaya dugsiga sare markuu soo gaadhana foomanka waxaa loo bilaabayaa tafsiir waa inuu dhameeyo form 2ga markuu marayana fiqi buu dhiganayaa form 3ga markuu marayana wuxuu dhiganayaa fiqi muqaarana afarta madhaboodba fiqigooda waa inuu yaqaano marka ardaygeennasi markuu dugsi sare ka baxo isagoo caalimo oo diinta yaqaano ka baxaya markaa kuwa caalimkii daaqadda jabin maayaan cidda jabin maayaan iyagaa inoo dhigaya markaa waxaan leeyahay ninkii odhan jiray iskuulkaasi waa taxfiid qur'aanow war ardaydii iskuulladaa taxfiid qur'aan loogu dhigayaa marmarsiyo kale ha noo samaysanin soo magacaa doonto ula bax manhajkeed wasaaradda waxbarashada waad raacaysaa haddaad wax dheeraada u dhigayso dee cidi kuu diidi mayso ninka imika afrasiis u dhigay iyo ka amxaarig u dhigay iyo af kale miyaynu u diidana laakiin horta af soomaaligii iskuulka af soomaali lagu dhigan waayana sanadka waxaanu bilaabaynaa fasalka afraad markay ka baxayaana in laga qaado imtixaan ardayga af soomaali iyo xisaab ku baasi waaye ee fasalka afraad ma gudbayo taa ogaada sidii fasalka 8aad loo qaadayey ee ka 12aadna loo qaadayo ayaa loo qaadayaa markaa iskuulladaana maalin dhaweyto mid gubtay baa jiro ay ku gubteen ardaydii waxaa loogu gubanayaa waxa weeye waanu soo diiwaangelinayn dabeetana standardkii ama nidaamkii ay wasaaraddu samaystaan u raacayn dulqaadkaasi wuu dhammaaday nin walowba ogow wallaahi inaanan ergana ka yeelin ninka sharciga jabiya ilaahay baa nagu cadaabayaba kitaab baa gacanta lay saaray aad dastuurka iyo sharciga dalka fulinayso haddaan ka dhaqarsado dee ilaahay baa ay arkaya soo ma hadde madaxweynihii iyo xubnihii golaha wasiirada arrintaasi waa sharci waanu fulinaynaa sidaa ku ogaada wasalaamu calaykum markay dhacdo waxa cid baa u xil saaran laamihii dawladda wasaaradduna waxay u xil saartay waxay leedahay guddi qaabilsan marka xaalad noocan oo ay dhacdo iskuulkii hore go'aankoodii waa kuwii soo saaray iskuulkana go'aan bay ka soo saareen